dhegaysta ku soo dhawow xalqad kale oo xiiso leh oo ku saabsan nolosha jilayaasheena xiisaha leh ee riwaayadeena sahanka nolosha. waa riwaayad raadiye oo ku saabsan nolosha xiisaha leh ee daaqsan. farxad ayay noo tahay inaad nala dhegaysatid riwaayadda. xalqaddii hore waxaan aragnay madaxa burcadbadeedda oo la sumeeyey kadibna inta uu suuxay dhulka ku raftay. talow ma badbaadi doonaa? mooge waxa uu ka soo baxay xabsiga, waxaana uu digniin siiyey xaawakiin xalqaddii hore. maxay xaawakiin samayn doontaa? aan ka wada ogaano isla xalqaddan. allah yaay war caawiya war aawi caawiya war nimayow kaalaya caawiya waxbaa ka qaldan madaxii burcadbadeed ee kaalaya soo carara war kaalaya in la caawiyo ayaan u baahanahay fadlan soo carara kaalaya caawiya war aawi dadkii wax jooga ma lahan miyaa war maxaa meesha ka socda ma aqaan wuu dhacay isagoo wax cunaya waxay u eg tahay inuu wadnaha istaagay ma neefsanaya ninkan maxaan samaynaa ka leexo aan fiirina dhaqdhaqaaqa wadnihiisa aga waa runtaa wallaahi wadnihiisu waa shaqayn maayniyo ma dhici karto oo miyuu dhintayna haa sidaas ayaan u malaynayaa madaxa burcadbadeedda inay naftu ka baxayso ayay u eg tahay xaawakiin ikhtiyaarka adiga ayaa iska leh kulay aniga waan dhahay wixii aan dhihi lahaa waxaad ku qasban tahay inaad mid dooratid taasi makaa dhabbaa mooge oo tanna manoo dembaysay adiga waayo qofka furiinka rabay maxaad isaga dhigaysaa sidii qof aan waxba galabsan horta sidee xabsiga ugu soo baxday adiga dembiile ayaadba tahee xaawakiin aniga kuma qasbani inaan wax kuu sharaxo aniga iyo adiga laba qof oo isqaba ma nihin hadda xasuusnow middaas marka ma joogaysaa haddii aad sii joogaysid waxaan u malaynayaa inaad marwasi ahaan doontid soo sax maaha si fiican ii dhegayso mooge aniga iyo adiga way inoo kala dhammaatay gurigaanna waan ka baxayaa kumana soo noqon doono abidkey alaabteeda ayaan qaadanayaa oo waan baxayaa warkuba intaas ayuu ku dhan yahay baadhitaan ayaa ku socda jirkiisa oo 2 saacood gudahood waan ogaan doonnaa sababta keentay geeridiisa laakiinse waxa dhacay waa yaab runtii ma aqaanno daqiiqad ka hor si nabad ah ayuu cuntadiisu cunayey kadib isla markiiba wax uu bilaabay inuu neeftuuro xanuun dartiis kadibna dhulka ayuu ku dhacay arrintu annaga nooma fiicna burcadbadeedda annaga ayaa gacanta ku haynay haddana waa uu dhintay dadku waxay u malayn doonaan in annagu dilnayba oo maxay sidaas ugu malaynayaan laakiin yaa waaya cidda rabta geeridiisa talow anigu lafteyda waan la yaabanahay arrintaas aad baan ugu wareersanaa meel baan aadaya waana soo laabanayaa intaan ka soo laabanayo cid ha kala hadlin arrintan intan war dheeraada uu ka soo baxaayo see tahtawa bare hawshii waan qabtay madaxii burcadbadeeddan waa uu ku daayey haahey ninkaasu kuma haysto qofna ma shakin doono baaritaan ayay ku wadaan jidhkiisa laakiin suntaasi lama soo heli karo haa haye hadhow baan wada hadlaynaa xaawakiin maxay yihiin waxaanoo boorsooyin ah waxaan u baahanahay meel aan sii joogo intaan ka soo kabsanaayo oo gurigaagiina maxaa ku dhacay mooge ayaa xabsigii ka soo baxay maasha allah marka wax dembi ah laguma helin miya yaa og sida uu ku soo baxay weli ma fahmin waxa iska quseeyo boorsooyinkaaga iyo soo laabashada uu soo laabtay mooge waan ka soo tegey hadda halkan ayaan joogayaa jah markii hore ayaanba dhaqaalad xumida la taag darnayn haddana ma dad kale ayaan quudinaynaa waayahee marka ma ku soo siiye lacag aad isku dabbarto
hooyo aniga ma rabo wax ku saabsan lacagta mooge. ama sidaas baa sababtoo ah waxaa tahay gabar taajirad ah oo carruurteeda ka taxadari doonto adigoo aan u baahnaan doonin waalidiintaada waayeellada ah inaad culays saarto soo maaha waxba aniga sidaas ha ii fiirinin xaawakiin waalidkaada si aan caddaalad ahayn ayaad ula dhaqmaysaa mooge lacag ayuu leeyahay ciyaalkiisana wuu dhaqaalaynayaa suhayb ma aha qofka aabbihiis furay weli wiilka dhiiggiisa waaye oo isaga ayaa mas-uuliyad ka saaran tahay oona ka taxadiraya ilmihiisa. hooyo fadlan alaabta ma furfurtaa? xaawakiin furfuro alaabtaada laakiin inta aad furfuranayso waa inaad si aad u qoto dheer uga fakeri doontid mustaqbalka wiilkaaga hadduudsiin xaqiisa adigoo fiirinaya furriinkaaga ka feker waalidiintaada gaboobay oo jilcay waa inaad ka fekertaa oo adiga iyo carruurtaadaba aad quudin uga fadhidaan. haa mudane waxaan kuu ballan qaaday ma jiri doonaan dadaallo lagu ogaan karo arrintaas waxaa intaas sii dheer waxaan ku tala jirnaa inaan afduubno markab cabirkiisu yahay dhexdhexaad mana arki doonna markaan isaga helno ayaan soo afduubi doonnaa maraakiibta waaweyn waxaan hor istaagi karno ma jiri doonaan mudane aniga ayaa hawshaasi isku dabarida waad macsan tahay mudane nabadii waraa yaaway qoftaas waxaa la dhahaa luul waxay ka tirsan tahay ciidanka ilaalada xeebaha qofka la socdana waa walaalkeed ka yar oo hadda uun ku biiray kooxda kubadda cagta waa ciidanka ilaalada xeebaha miya oo miyaa la qabaa waan u jeedaa warbixinta aad xiisaynaysa ee aad rabti inaad ogaatid waa intaas uun saba maaha walaalkay gaddoomiyaha la jecel yahay ee daaqsan farxad bay ii tahay inaan ku arko walaalkayga tababaraha ah anigoo farxad bay ii tahay in aan ku arko waan arkaa oo kooxdaada kubadda cagta aad baa loogu soo biirayaa maalinba maalinta ka dambaysa haa waa sidaas ma hadda oo dhan adiga ayaa iska leh oo taageero ila garab taagan walaal waa laysku leeyahay runtii hadda maalin aan uga baahi badan nahay ma jirto inaan ku taageerno si aad u sii wadid shaqadan cajiibka ah ee aad dhallinyarada uga mashquulinaysid inay qaadaan jidadka khaldan xaqiiq waaye tababare haddadan aan kula hadlayo ma aaminaysaa in dad ku dhiirradeen in ay afduubtaan markab nooca dhexe ah maxaa ma naqaan cidda ay yihiin kuwa waxaa sameeyey maya hadda war rasmi ah ma hayno oo tuhun unbaa jira daaqsan waxay ku noolaanaysay nabad umana baahnin in burcadbadeebnimadii soo laabato waan sii baxayaa hadhow baan wada hadlaynaa walaal nabadee walaal nasiib wacan ayaan kuu rajaynayaa iyo inaad gacanta ku soo dhigtid burcadbadeeddaas taliya tawakal waxaa fiicnaan lahayd inaad wax uun fikira ka haysato waxa dhacaya laakiin haddii aan runta kuu sheego annaga lafteenna kadis ayaynu u noqotay hibow waxaan u malaynayaa in burcadbadeeddaas in muddo ahba qorshahan ay wadeen afarta jihana ay weerar ka qaadeen waxay xadeen laashkii kadibna waxay soo qafaasheen markabkii nooca dhexe ah haddana waxay dileen madaxii burcadbadeedda ma la xaqiijiyey inay iyagu dileen madaxa burcadbadeedda anigii adiga haynugu koobnaato waxaanse u malaynaya in iyagu ay ka dambeeyeen ma xasuutaa inay ii yeedheen oo ay rabeen inay la wadaagaan warbixinta ku saabsan burcadbadeedda anigu waxaan ku yidhi khiyaano waa haa wax buu ogaa middaas waa hubaal waxa dhacaya wax la fahmi kara ma aha waxaan ku qasbannahay inaan helno qaab aan ku joojinno intaysan weerin maraakiibta waaweyn sababtoo ah hadafkeennu waa kaas runtii waa wax laga murugoodo in xilligan ay wiilal yaryar ku dhacayaan dabinka burcadbadeedda waxa ay u socdaan waa geeri kama soo noqon doonaan iyaga oo nool waan ogahay dhallinyarada mararka qaar waxyaabaha doqonnimada ay sameeyaan waa inay weyddiiyaan kuwaas burcadbadeed madaxda u ah weligood horta marka ma fuleen waa maya burcadbadeedda dhallinyarada ah ayaa shaqooyinka hoose ee qulunkaa qabta kuwa madaxda ahna waxay ku raaxaystaan lacagta ay ka soo helaan haa
waa wax laga murugoodo wax ka soo gaari doonaa ma jirto lacagtaas loo ballanqaaday waxa keliya ay hooyooyinkood u keeni doonaan waa oohin iyo baroor waa wax laga murugoodo maxay saaxiibada caalamiga ah ee sharaakada la ah ciidanka ilaalada xeebuhu leeyihiin wax warbixin ah arrintaas ku aadan ma hayaan isla markiiba waan wacay oo goobta markabka lagu afduubay ayay aadeen si ay macluumaad uga soo aruuriyaan oo ay noogu keenaan hagaag ila socodsii haddaba meesha ay wax marayaan hadhow waan is arki doonnaa insha allah bal mooga ka warran ma jirtaa qof og sababta iyo sida looga sii daayay xabsiga daaqsan waa meel la yaab lehibow runtii hadda ayuun baan u sii socdaa guddoomiyaha gobolka si aan bal jawaab uga raadiyo waa inoo yahay hadhow haye nabaday mudane haanadow farxad bay noo tahay inaad noo soo noqotid see dareemaysaa hadda maanta maalin aa ka fiicanaya ma soo marin caawil aad baan u fiicnaa kuma noqon doono darogada mar dambe waan ku faraxsanay inaad middaas kaa maqlo kubadda ayaan kugu mashquulin doonaa laakiin haa waan ku wada mashquuli doonnaa wiilkan waa ina adeerkay bilaal hadda uunbuu u soo guuray daaqsan barasho wanaagsan bilaalow markaa diyaar muu tahay inaynu kubadda dheello hadda waxaan noqon doonnaa ciyaaryahanno laga daba dhacay oo gabdhuhu wayna fiirsan doonaan soo maaha aniga banooniga uma dheelaayo gabdhaha dartood bilaal waan ogahay sababtaad banooniga u dheelaysid waan ku fahmay cayil adiga naftaada waa hadalnoo wiilashaydii waan idiin jeedaa inaad ku faraxsan tihiin inaad timaadaan halkan haa tababare hagaag hadda orod oo jidhka furfuro oo iskululay markaas kadib ayaad ciyaarta bilaabi doontaan 4 jeer ku soo wareegay marka hore garoonka haye tababare wiilkaas bilaal ah waa qofka aan bartilmaameedsan doonno waxaan u shaqayn doonnaa burcadbadeednimo tababare aniga fikirkaas ilama fiicna adeerkiis dirir waa qof u dhaqdhaqaaqa ka hortagga burcadbadeednimada wuxuuna ahaan jiray burcadbadeed uu ka toobad keenay middaas cabsi kama qabaani shalay baan bilaal la hadlay wuxuu u eg yahay inuu ku habboon yahay burcadbadeednimo waalidkiisa waxay la daala dhacayaan inay nolol maalmeedkooda soo saartaan waan hubaa inuu aad ugu farxi doono haddii uu helo fursad uu ku caawin karo waalidkiis waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaysan aad iskugu fiicnayn adeerkiis oo uusan sheegin qorshahaaga adiga horta mar waliba meesha xun maxaad wax uga fiirisaa meel fiican wax kuma aragtid miya waa i daalinaysaa un xaawakiin ma adigiiba isuga xaggee u degdegaysaa oo u socotaa dirir waxaan u socdaa inaan mooge arko waan fahmi la'ahay sida uu soo baxay ninkaasi waa dembiile dadka ayaan waraystay oo ma jiro qof og inuu soo baxay way iska caddahay oo isaga keligiis ayaa og siduu ku soo baxay aniga ma nasan doono ilaa aan mar kale ninkaasi xabsiga ku hubsado waxaan u tegayaa guddoomiyaha gobolka si aan cadaadis ugu saaro in mar kale dib loo xidho ninkaas aniga waan iska dhaafay inaan tamarteeda ku dhumiyo inaan raadiyo siduu ku soo baxay nidaamkeennu waa mid musuqmaasuq badan waan iska sii baxaayaa waan maqlay inaad guurtay xaawakiin runtii waxaad qaadday tallaabo ammaan mudan aniga ma rabin inaan arko isaga laakiin hooyaday ayaa igu tidhi waa muhiim inuu suhayb xanaantiisa ka taageero waana ku raacsanahay middaas waan gartay hanad wuxuu ka soo baxay goobtii dhaqancelinta wuxuuna aaday banooni oo waxay israaceen cawil iyo adeerkiis bilaal waa war wanaagsan waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ku mashquulo banooniga oo ka dheeraada damaca xun wuu fiicnaan doonaa annagoo dhan ayaan caawin doonnaa guddoomiye natiijada baadhitaannada la sameeyey marxuumka weli ma ay soo bixin waxaynu u diraynaa carracad si aynu u hubinno in aan la qaldin baadhitaannada laakiin muxuu qalbigaagu kuu sheegayaa adigaa arkay madaxa burcadbadeedda isla markii uu dhintay waxay u eg tahay in la sumeeyey oo sidee sin loogu geeyey wuxuu ku jiray xabsi oo wuxuu ahaa maxbuus xiran waxaana ilaalinaya askartaada waxaan ku tala jiraa in aan ka salgaadho arrinta waxaana su'aala weyddiin doonaa askarigii cuntada u keenay ee ilaalinayay sidoo kale waxaan la hadlayaa qofka cuntada keenay wax raad anna weli ima bixin tawakal waxaan doonayaa inaan ku weyddiiyo
adiga wax shakhsi ahaan idinka dhexeeyey adiga iyo madaxa burcadbadeedda miyaa jira maxaa makaadhab baa guddoomiye ma anigii ayuu tuhunku isku beddelay oo layga shakiyey sababtu waxaa weeye askartaada ayaa ilaalo ka ahayd haddana wuu dhintay malaha waxa quman in aad diiradda u leexiso dhanka mooge isaga ayaa noqon kara maadaama uu hadda xabsiga ka soo baxay siduu ku soo baxay isagoo muddo dheer ku xukuman aniga laftayda ayaa ka xanaaqsan in mooga xabsiga laga sii daayo laakiin wax aan ka qaban karo haba yaraatee ma laha haa oo gacmaha ayaan ka xirxiranaya runtii maxaad ka waddaa waxba kama qaban karo adiga ayaa guddoomiye ka hadaaqsan haa waa runtay waxba kama qaban karo oo gacmaha ayaan ka xirxiranaya sababta waxaa weeye mooga wuxuu leeyahay saaxiibbo sarsare oo ku fadhiya xilal muhiim ah nin la taaban karo oo wax laga dheefayana ma aha xaawakiin waa soo laabatay soo maaha waan ogaa inaad soo caqliyaysan doontid aaway boorsooyinkaagii aaway suhayb aniga halkan uma imaan inaan kula joogo mooge marka maxaad halkan u timid yaah aniga wakhti kuuma hayo aniga iyo adiga maxaan isku nahay marka koowaad anigu waxaan ahay ilmahaaga hooyadiis suhayb xasuuso middaas maxaad rabtaa hooyo ayaan muddo dheer wada hadalnay oo waxay furiinka iga tustay dhan kale haddii aadan ii soo laabanaynin adigoo xaaskayga ah dhanka kale aad ii sheegayso aniga xiise uma qabo waxaan halkan u imid suhayb dartiis waxaan kaa codsanayaa inaad biilkiisa meel saartid malaha waad igu ciyaaraysaa waa iska kay furtay wiilkaagii ayaad horay u wadatay haddana intaad ii timid ayaad lacag i weyddiinaysaa miyaa wiilka adigaa dhalay wuxuuna mudan yahay inuu nolol raaxa leh ku noolaado oh sababtoo ah waxaad u malaynaysaa inaan doqon ahay soo maaha adiga ma awoodid inaad naftaada iyo tan carruurtaada uu burcadbadeed ku dhalay aad ka taxdirtid marka ma waxaad rabtaa inaad igu danaysatid oo aan idin quudiyo sannado badan ayaad carruurtaas quudinaysay haddase indhaha ayaan furay si fiican ayay igu muuqdaan doqonkii aan horay u ahaa marka wiilka adiga aad dhashay ma taageeraysid miya isagoo dhiigaaga iyo dhacankaaga ah si fiican ii dhegaysa xaawakiin aniga weligay ma bixin doono biilka suhayb si ay ugu faa'iidaystaan carruurtaasi burcadbadeedku u dhalay ha ka yaabin orod oo cirkaasi lacag u doono waaw dhagarta loo maleegayo bulshada daaqsan way sii siyaadday mooge waxa uu diiday inuu bixiyo biilka suhayb talow maxaa dhici doona xalqaddan soo socota dhegaysta waxaa la gaaray xilligii aad fikirkaaga nala wadaagi lahayd waxaan dhowaan furi doonnaa qadka teleefoonka tooska ah si aad nooga soo wacdo aadna noola wadaagto fikirkaaga waxaa kale oo aad ka jawaabista su'aasha toddobaadka uga qayb qaadan kartaa adigoo adeegsanaya nambarka farriimaha gaaggaaban ee 2285 su'aasha toddobaadku waxay tahay ma kula tahay dadka tababare mukhtaar oo kale ah in lagula xisaabtamo in dhallinyarada ay ku dhiirigelinayaan burcadbadeednimo haddii jawaabtaadu ay haa tahay nambarka koowaad inoo soo qor haddii jawaabtaadu ay maya tahay nambarka labaad inoo soo qor adigoo adeegsanaya nambarka gaaban ee farriimaha ee 2285 mar kale su'aasha toddobaadka waxa ay tahay haddii aan kuugu celinno ma kula tahay dadka tababare mukhtaar oo kale ah in lagula xisaabtamo in dhallinyarada ay ku dhiirigeliyaan burcadbadeednimo nala wadaag fikirkaaga la soco qaybta wicitaannada tooska ah ee socota goordhow kuna xidhnow sahanka nolosha jimco kasta 2:30 duhurnimo